xildhibaanadan ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee maanta soo gaaray Cadaada ayaa waxa hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xildhibaanada aqalka sare Abshir Maxamed Axmed Abshir Buqaari. xildhibaanada markii ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha Cadaada waxaa si weyn ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug. xildhibaanada iyo waxgaradka kale ee la socda ayaa loo soo gudbiyay howlka nasiinada ee garoonka diyaaradaha Cadaado. waxaan ugu horeyn goobta ka hadlay siyaasiga Cabdiweli Ibrahim Garyare oo ka mid ahaa wafdiga maanta yimid Cadaado. waxaa maanta halkan aan soo gaaray xildhibaano ka kooban labada aqalka sare iyo golaha shacabka oo uu horkacayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Abshir Buqaari. xubno badan oo ka tirsan aad wada garanaysaan oo hadda xagga dambe taagan. ujeedaduna waxay tahay sida hadda xaaladda magaalada Cadaada ka jirta xal looga geysan lahaa oo isugu soo dhaweyn lahaa dhinacyada ku kala aragti duwan xiisada hadda magaalada ka jirta. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xildhibaanada aqalka sare Abshir Maxamed Axmed Abshir Buqaari ayaa sharaxaad ka bixiyay ujeedka socdaalkooda. ujeedada socdaalkooduna uu yahay xasilinta qalalaasaha siyaasadeed ee ka soo ifbaxay hay'adaha dastuuriga ah ee Galmudug. waxaan runtii hoosta ka xariiqaynaa in ilaalinta sharciga iyo sareynta dastuurka uu siiyey yagleelidda habdhismeedka iyo dibadhiska dowladnimada Soomaaliyeed oo ah dowladda federaalka Soomaaliyeed taasoo ku salaysan hanaanka baahinta xukunka ee habka federaalka. kaas ayaan hoosta ka xariiqaynaa mar alla markii aan la kulanno qaybaha kala gedisan hay'adaha dastuuriga ee Galmudug ayaan wixii warbixin aan dib ka sheegi doonaa. intaas kadib xildhibaanada iyo wafdiga la socda ayaa loo soo gudbiyay xarunta madaxtooyada Cadaado waxayna kuna la qaateen madaxda maamulka Galmudug. Sharmaarka Maxamed Maxamuud TV-ga caalamiga Home Cable magaalada Cadaado.